نبي محمد وحو الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيحها رسولك وحو حسين ولا كل من نبي إبراهيم هبيك إلا ديلميين فرين بو إنه صوفر نبي إبراهيم وحو لمدي سلاني جارسي وحارضو sheegtaa arinta qolada meesha jannada la yiraahdo marka ilaahay waa awliyadiisa ku casuumayo tayyibatu turba adbatu almaa wa innaha qi'an qarsuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ciida jannadu waxa weeye mid wanaagsan oo udgoon biyaheedu way macaan yihiin waa meel isku siman oo boholo iyo buuro iyo turunturro toona lahayn waxa lagu beerayo barwaaqadeeda ay ku baxdaana waa dhikriga subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar qof waliba oran kara odayga iyo islaanta iyo mid mutacallima mid waliba wardiga iska kooban uu akhri kara isagoo boqolaal iyo kumayaala wad beeraysaa jannadii waxyaabaha jannada lagu beero waxa kamid ah istighfaarta astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah 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 ma dadkeenu waa khaldaan astaghfirullah waa qalad astaghfirullah taasoo lagu dhawaaqayo sayyid istighfar nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam istighfarta waxa hormuud oo inaad tiraahdo la ilaha illa allah la ilaha illa ant allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ذكر جاء قفك كل واقع قال إنك هرا طول أنت قال إنك الدم شندو قال دو قال إنك الدم كل واقعنا قال إنك هرا شندو قال كل بوقت أو كل واقع شنو كهلية أو يحيي شند اللي جهله وبذكر جاء استقامة قفك وحفظ كرا آية الكرسي النبي يقول الله عليه الصلاة والسلام قفك آخرية الصلاة والبمرقب آية الكرسي قفك آخرية لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت jannada inuu galo waxba ka hor joogo inuu dhinto waxa isku beegmayeen isagoo ku wardiyay oo salaad ka baxay isagoo naftu ka baxdo jannadu cala tuulu galayada lagu leeyahay bismillahi la'adan baa ku jira shaydaankiina way ka eriyay waxa kamida waxyaabo nabigu xusay inoo sahlan baa kooban ee jannada lagu galayo ducadan suuqa marka uu galayo qofku inuu akhriyo لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وحلو قرأ يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام ألف حسنة كن وحسنة معناه وحوي كن لقول لفتي هل مليون حسنة لو قرأ هل مليون أودن بينا ولا قد عافية هل مليون أودن رجنا والله ضلعية وحين وجد شدنا وبني له بيتا في الجنة كورنا شدنا ذا لغسي بنايي صمت علينا دي ميلاد soo degayso guri goglan oo salaxan oo guriyaha ugu qaalisan ee ugu raaxo badan u sii diyaarsan yahay gurigaas hadii aad intaas ku wardido aad akhriyayso waxyaabaha cajiibka ah ee inoo sahlana jannada wadooyinkeeda waxa kamid ah su'aalul janna inay ilaahay barina jannada ama af carabi ku bari ama af soomaali ku bari luqadda taqaano ku bari ilaahay luqadaha dhan in isaga ina baray subhanahu wa ta'ala rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wa sallam waa xadiis saxiix albani silsiladiisa saxiix kaga dhigay haddii qofku uu 7 jeer yiraahdo ilaahay uu naartaan ka magan galay ilaahay uu naartaan ka magan galay carabiga af soomaali mid ku doonaya ku dhaha 7 jeerna yiraahdo ilaahay uu jannadan ku weydiistay naartii la hadlaysa waxay leedahay ilaahay uu adoonka iga ka magan galay ka badbaadi iga badbaadiyo iga jooji Allah aqbalay ilaahay uu adoonka ka weydiistay halkan keen bay leedahay jannaduna ilaahayna subhanahu wa ta'ala isaga u fasaxay uu ku geynaya hay ku yeelaysa تضبط شرينة كعريس وحكمنا قول لا إله إلا الله فلا شهادة دي سوق يالتاء تضبط بقى هاي الشهادة ده إن لقوا إسلام ولا تشوتشيون أنتوا لقوا إسلام كلقوا صار قلاف فره دي ون أي تاي إن الكالس جحر الشهادة ده هو وردي وقاري سنبا وردي قد بالال كوي يالنا يسدكوا إلهي حقي يسود دولة يسوى الشهادة ده مركا أنت تكرر كرتات بدينيس لا إله إلا الله 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 النبي عليه الصلاة والسلام وحكول حديث كي صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قفك مركي نفته كسيب بحيثه لا إله إلا الله انت كل واقع شندو قلي يا ابو النبي عليه الصلاة والسلام سيادة لا داد بهبونتي انت ينودد كسير لنا يحيي تشلهاي ولم يسان هبل كلهاي هبل محاد سينيسا aniga maxaad siinaysaa yeena la shahaadada seejin oo aynan ka xaraajin
mid baaba laga yaabaa inuu ku xanaaqo u ihahdo maanaa dhaxalkayga usoo dhigato sidaa ku ashahaado seego marka waxaa muhiima laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah in la badiyo salaada xusay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka ku dadaalaya salaada ee aan xaqiraynin dayacaynin ilaahay agtiisa cahdi buu dhigtay iyo ballan inuu jannada geliyo hadduu xataa gef ku dhacaba gef baa ku dhacee ilaahay agtiisa ballan buu dhigtay qofka tukanaya inuu jannada geliyo sidoo kale jannada inuu ku gelayaabuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ku dadaalo 12 ragcadood ee raatibada la yidhahda salaadaha raaca 2 ragcadood oo ka horeeya subaxa 2 ragcadood oo duhurka ka horeeya 2 ragcadood oo ka ama 4 ragcadood duhurka ka horeeya way jiraan labaduba iyo 2 duhur ka dambeeya 2 maghrib ka dambeeya 2 cishaa ka dambeeya marka duhurkii baa wuxuu leeyahay maxay 6 buu leeyahay iyo salaadaha kale oo 6 casarkii markaa kumu darin nabigu calayhi salaatu wasalaam marka 12 ragcadood hadduu qof ku dadaalo jannadu galayaa buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa tabnaado waxyaabaha jannada lagu galayaa man khutima lahu bi siyam yawm dakhala aljanna hadithna sahih xudayfa warinayo qofka isagoo sooman khaatumadiisa soomo u dambeeyo maalinka ama sooman ama maalmaha u dambeeyay soomayay soonku fadligu leeyahay jannadu ku galaya infaaqa isaguna lamida oo ka 12 wax bixinta iyo shayga deeqda nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii magaalada madiina waxa ku yaalay ceelaad u biyo badan oo bulshadu ay u baahnay ruuma la oranay biyo ruuma marka ninkii lahaa uu nabigu ku yiri il jannada ma ku iibsano umada maadsiin de wax kale aan haynin buuriyo inta waan u baahana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardaahu ayaa ka iibiyo ninkii lacagtiisii siiyay lacag markaa qaali ahayd ayuu ka bixiyay 35 dirham oo qiimo waqtiga lahaa laakiin nabigu afka u soo dhuubay wuxuu yiri ceelkan isaga ah hadii aan bixiyo ma ku helayaa ishii aad sheegaysay ninkii uu ku heli lahaa ila waadiga yiri hadaad ceelkan bixiso isha jannada ku helaysa ha waad ku helaysaa buu daba ilaahay daraadii baan u waqfay marka in dadkan haraaday ee xiiqeed duruuftu ah si ceelal biyo loo qodo oo la siiyo wixii la heli karayo iyo sadaqada sheekhuba markii dhaweyd idin sheegayay waxa uu qiimo badan weyn noocyada kala duwan biyahana si fadli badan waxa la 12aad oo wadooyinka jannada kamida alxifsu ala birri alwalidayn labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo Aisha waxay tiraadeen baan ku riyooday inaan jannada galayo quraan la akhriyo baan maqlay markaas aan waayo qofka quraanka akhriyay Haritha ibn Nu'man ninkii la oran jiray baa jannada ku jira quraanka akhriyay baa leeyahay nabiga uu sheegay markaas uu yiri kadhalika albirr samafalka caynkaas ninkaas in waalidkiisi uu samafal jiray buu ahaado samafalkaas uu ku helay aljannatu tahta aqdam al-ummahat jannadu waxay ku jirtaa hooyada agteeda hoosteeda marka haddaad hooyada galka qabatood maslaxatood u samafasho way kaaga dhaqaaqay hadii kale lugtii aw sabiray ka saari